dagaaladii aan soo marnay taakulaynta waxay noogu imaan jirtay herar iyo kumbulsho iyo meelo Addis-Ababa sokadeeda ah waxaa naloo keeni jiray babaay iyo muus iyo oberaan laga soo qaaday diyaaradaha berbere iyo Hargeysa keeni jiray markaasaa baabuurta noo soo qaadi jirtay maanta waxaan u maleynayaa babaygii iyo warkiisa iska dhaaf sidii kalaba la isu haystaa ay keliya ka yihiin tusaale hal mid marka ay gashan yihiin waxaa idiin sheegayaa oo idiin sheegeen annagu waxaan bixinay oon diyaar u nahay inaan ku bixinno qarannimada Soomaaliyeed nafteenna iyo dhiiggeenna idinku maxaa diyaar u tihiin 2017 December 31 haddii Ilaahay yiraahdo waxaan ku soo dhammaystiri doonaa oo halkan waa ka sheegayaa haddii aad dawladda u shaqaysay in mushaarkaadii aad heshay Janaayo ilaa December waxaa weli hor taagan waxaan u dirnay baarlamaanka inay soo ansixiyaan sharciga la dagaalanka musuqmaasuqa si loo abuuro guddi xor ah awood u leh inuu qof walba dabagalo soo qabto soo xiro maxkamad keeno haddii lagu arko musuqmaasuq sidaas daraaddeed waxaan leenahay baarlamaanka Soomaaliyeed fadlan ansixiya sharciga la dagaalanka musuqmaasuqa maxaan ugu soo noqon la'nahay dunida maxay khasab u tahay inaan mar walba dunida tuugsano ma isweydiisaan anaa idiin sheegaya waxay tahay dalkeenna nasiib darro waxaa lagu leeyahay dayn gaaraysa $6 bilyan si deynta loo kaga daayo qof walba Soomaaliyeed qayb uu ka qaadan karaa waxaan la ka rabo waxa ay tahay kow inaan isticmaalin xoolo aanan haysan in haddii hadda madaxda qaranka nahay aanan qorqorin warqado kale oo dhibaato dalka u keenayo waxaan la ka rabaa inaan soo marno shuruucda IMF-ta iyo World Bank-ga oo ah isla xisaabta macnaheedu waxay tahay dhaqankii dawladnimo oo ahaa maxaa iga galay in lagu bedelo anigaa iskale haddaad rabtaan nololtii hore ka duwan dhexdhexaad lagama noqon karo sharafta iyo karaamada ummadda Soomaaliyeed waxaan aaminsanahay sida keliya oo xalka Soomaaliyeed looga bixi karo inay tahay hal dariiq keliya dariiq keliya waana dariiqa Soomaalinimada kuwa kale dhan wala soo tijaabiyo waana lagu khasaaray inaad ogaataan sida keliya oo dawladnimada lagu gaari karo inaan kicinno hir dawladeed oo idinku ugu horeysaan waa inaadan guryihiinna ku jirin inaad u istaagtaan dawladnimada waa inaad ogaataan cid walba oo aad ka maqashaan inay qaylinayso waxay rabtaa inay damiso iftiinka dawladnimo mana ka aqbalayno dhalinyaradan Soomaaliyeed oo ay garab taagan oo labisan oo qaarkood ay ka mid yihiin anigu aan garanaya ciidamada xasilinta magaalada oo xabadaha isu dhigaan oo amniga magaalada aad aragteen xoolo yar uga shaqeeyay mushaar yar wax walba oo yar iyo hurdo la'aan waxay idin soo hor istaageen waxay yidhaahdeen waxaan ogolnahay inaan bixinno waxa ugu badan oo qof bilaadan bixiyo waa nafteena gabadhii sharafta badneed Sucaad halkan laga sheegay haddaanan magaceeda qaldin way mahadsan tahay iyo gabadhii kaloo Soomaaliyeed oo xafiiska ra'iisul wasaaraha ka shaqeysa oo aan ogahay inaanay lacag badan qaadan maalin walbana xafiiska u soo kalaado inay $200 halkan ku bixisay iyaguna waxay ka turjumayaan kuwa rabo qarannimadu inay jidka ku taagnaato
ugu dambayntii walaalahayga guddiga taakuleynta waxaan u sheegayaa 20,000 oo dollar oo ugu horreysay waxaa ugu yaboohay dowladdu uu hogaamiye madaxweyne Farmaajo waa mahadsantiin. Wassalaamu calaykum.